Bismillahirrahmanirrahiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada. Maanta waxaan rabaa inaan idin tuso sida loo isticmaalo Photoshop ama sawirada adduunka ee website-yada ama telefishinada ama social media-ha ama meel walba oo sawir aad ku aragtaan sida loo isticmaalo. Sawirka aad u jeedin mid waa kana, sawirna waa kana. Waxaan rabaa marka inaan ka dhigo sida tan. Waad dareemi kartaa sawirka koowaad waa kana. Labada sawir marka isku geeyay sida uu noqday waa ujeedaan. Marka waxaan rabaa inaan isticmaalo Photoshop CS5 oo ah barnaamijkii kacsan waa kan. Okay, Photoshop-ka nin walba wada yaqaana ama dhagta uu ka maqlay, laakiin waxaan rabaa sida loo sameeyo website-yada caalamiga ah, telefishinada caalamiga ah, meel walba joogtid sida u samaysan sawiro qurux badan ama sawirada dadka lagu waalo sanadahan meel walba social media. Ila soco dhowr qaabood ayaa loo soo geliyaa. Dhankan waa toolbar, dhankanna waa menu bar. Okay, waxaan rabaa marka inaan soo geliyo dhowr qaabood aan soo geli karaa. File menu inaan dhaho oo aan soo dhaho import aan soo dhaho ama drag and drop. Drag and drop waxaa la dhahaa page meesha ku jiraan folderka ku jiraan aniga oo tago highlight soo saara ama left click kusoo qabto kusoo jiido inta barxadaan la yimaado ama laba click inaan ku siiyo meeshan oo banaan. Kadib aan tago desktop aan doorto, kadib photos aan tago, inaan tago, kadib photo aan furo. Waxaan soo gelinayaa marka sawirkan oo banaan iyo sawirkan kale. Sababtoo kaas waa sambalkii ay tusi lahaa waa in tusay. Kadib offnina leedahay laakiin aan luqad wuxuu ii saaran yahay oo doojku ii saaran yahay ama luqada Jarmalka waa open. Okay, meeshaas u jeedin quful ayaa ku xiran. Qufulkaas uu ku xiran yahayna meeshan wax aan ka sameyn kara ma lahan. waa jiidi kartaa waxa aragtaa ka sameyn kartaa laakiin wax kale oo aad ka sameyn karta ma laha. Okay, waxa sameynaysaa laba kliga inta ku siinaysaa layer 0 ku soo baxayo. Okay leedahay kan kala tagaysaa sidoo kaleeto laba klig ayaa ku dhufanaysaa layer 0 giisa ku dhaafaysaa. Okay, adaad magacaata u baxsan kartaa aday mataqaanaa iyo mataqaanaa. Okay, toolkan way farbadan yihiin laakiin tool walbo wuxuu leeyahay shortcut badan isticmaali doona laakiin waxaan sameyn doonaa marka isticmaala waa idin sheegi doonaa iyo magaciisa. Hadda waxaan isticmaalayaa laser tool waa kan. Saddex nooc oo leeyahay mid ka dhaxaya isticmaalayaa ama L aan keyboardka ka taaban karaa. Okay, click ayaa waxaan ku siinayaa waxaan u jarayaa meesha dhanka biyaha maadaama sawirkan kaleeto aan biyo ku dhex jiro aan u baahanahay gadaal dambe inaan jaro. Kan aan waxaan sameynayaa dhanka biyaha iyo meesha iska galaan dhulka aan soo jarnaa. Click aan ku siinaysaa click haddii kaa qaldanta lacala meel oo qaldan ee kaaga dhacdo backspace ama meesha oo qoraalka marka keyboard ka qorayso kaa qaldanta ayaa ugu fujinaysaa oo meesha qoraalka looga tiro. Okay, saa u jeedid waxaa saaraysaa highlight-ka aad ku wadaysaa. Okay, meesha biyaha iyo mataqaanaa iska galaan si oo mataqaanaa loo dareemin hadhow in meeshan waxaan lasoo jaray loo dareemin oo loo dareemo inay tahay waxaan wax realityed ama qofka mataqaanaa meesha uu joogo. Okay, marka meesha cilada aan joogo waxaan sameynayaa control-ka qabanaya mains aan taabanaya gadaal ayaa sawirka u aadaya meel ciladaas iska taabanaya. Okay, marka meeshaan marayo waxa adag marka meeshii aan ka soo bilaabay inaan isku dhajiso maahan inta keyboardka ayaan taabanaya automatic dhanka hoose waa isku qabsatay laakiin dhanka hoose ma arki karto wareegan laakiin dhanka ma arki kartaa. Marka waxaan rabaa inaan tirtiro qaybta hoose aan iska tiro qaybta kor aan qaato. Soo ku tiraya waxaan ku tirayaa control x qaybta kor qaybta hoose way iga baxday. Marka wax kale ma sameynayay keyboardka waxaan taabanaa v-da marka waxay la mid tahay move oo kan ah oo toolkan move saa u jeedaan ama keyboardka taaban kartaa v ka taaban kartaa. Marka left kliga qabanaysaa waa ku haynaysaa waa jiidaysaa waxaa tagaysaa layerkan kaleeto waa isoo baxa waa ku sii deynaya. Saa u jeedin marka kan shaqo badan igagama baahno kor ayaa xoogaa u jiidaya ilaa madaxiga uu ka soo baxo. Okay, waxaan sameynayaa marka waxaan jiidayaa kan geeskan kale ayaan geenayaa xoogaa madaxiga aan soo saarayaa saa u jeedin. marka meesha saas uu yahay meel kale ma aadi karo meel kale ma taaban karo sababtoo ah wuxuu rabaa apply sababtoo waxaan jiijiiday sawirkaan jiijiiday wuxuu u baahan yahay marka apply inaan dhaho waxaan leeyahay marka apply
apply marka dhaha kadib sawirka hoosaan taabanaa layer 0 maadaama uu yahay backgroundka dhan oo isku wada xiro soo ujeediin sawirka lagama dareemayo inaan soo jaray hal qof aan inta ku dabaalanayo oo sawirka hore ahaa sawirkan hadda daan dhaho control minus daan dhaho oo jida sawirkan qof inuu soo jaray la dareemi kara ma laha ina run u jooga iyo qof walba u maleyn karta marka waxaan jeclahay ama jeclaan doonaa inaa mid saas camal aad samayso doontid oo aad ka faa'iidaysato doonto cashirkan insha Allah marka aragtid inaan labadoodaba oo inaysan kala foqin ee isku dhignaadaan oo hal sawir isku noqdaan control ka qabanaysa kan qaraab dooranaysa kadib waxaa leedahay adoo control ka haysid aad taabanaysa ama eeda oo af Soomaali ahaan ka kugu sheego labada sawir soo ujeedin inta waxay noqdeen laba xab ay noqdeen okay see loo save gareeyaa qab dhowr qaabado loo save gareeyaa adoo file menu tagtid save aad dhahdid ama save as aad dhahdid ama save aad dhahdid saadi mataqaanaa keyboard kan isticmaalayo waxaan leeyahay control s marka inta waxaa ka dooranaysaa da sawir caadi ah ka dhiginaysa sawirada caadiga da ka dhiginaysa waxaad dooranaysaa jpg oo ah jpg da tan aad doonaysaa haddaad rabtid inaad photoshop ahaan ku save gareysina bsd aad ku save gareysanaysaa oo ah photoshop okay meesha geysanaysa ayaad dooranaysaa waxaan ku save gareynayaa desktopka waxaan ku qorayaa magac ah jpg ga iska jooga dooro ama ku wada qor aan leeyahay okay speichern ama save af mataqaanaa English ahaan okay hi ha ahaato okay saa u jeedaan marka desktopka ayuu ii saaran yahay iga cancel kan desktopka haddaan ku qoro magacayga waa kan saa u jeedin desktopka ii saaran yahay sawirkii hadda aan save gareeyay aad u mahadsantiin daawashada videogan la soco mid kale